inanta waa la kufsaday waana sixin markii la kufsaday sixin baa loo dilay aad iyo aad gudun baana lagu dilay qoorta waa lagaga jaray waxaan helay sidaan u raadinayay raadkeedu u waday aribaana la joogtay sidaan u raadinayay tobanka habeen ayara fariyad 15 jira lagu kufsaday cid la ciirsira oo nafteedii u gooyay oo uu quuri waayay oo uu jarjaray oo uu gaad saaray meydkeeda oo silicsan dhaawac fara badanna uu ka muuqdo wajigeeda ayaa ugu dambeyn laga soo helay geed dusheeda ugamay harin kufsi oo kaliya hase yeeshee dhibaatadan mugale ayay u geysteen ugu dambeyn aabaheed oo gabadhan oo la weysanaa baadi goobayay ayaa goob dur ah waxa uu ka soo helay meydkeeda haddaba daawadayaal kufsigan naxdinta leh ayaa waxa uu ka dhacay Somaliland waxaana idinla wadaagi doonaa aabaha gabadhan Soomaaliyeed waxyaabihii argagaxa lahaa uu la kulmay iyo isaga oo ka cabanayo cadaalad la'aan haddaba daawadayaal inta aanan kula wadaagin faldan marka hore muuqaalka leegaray si uu u baaho gabadhan Soomaaliyeedna ay cadaalad u hesho sidoo kale nagu soo biiro ka mid noqo asxaabteena adiga oo channelkeena subscribe dhahanayo kufsigu waxa uu noqday mid ku soo laalaabta guud ahaan geyga Soomaalida waxaana maalinba maalinta ka dambeeyda la arkaa dhacdo murugo leh marka laga hadlayo kufsigu waxa uu ahaa wax soo jireena oo Soomaaliya muddo fara badan ka socday hase yeeshee arrintan naxdinta leh ee soo korortay ayaa waxa ay tahay in gabadha la kufsadaa kadibna loogu daraa dil waxayna noqotay arrin la yaab leh oo muddooyinkii dambe si aad ah u baahday haddaba daawadayaal waxaan kula wadaagi doonaa dhacdo naxdin leh taas oo ka dhacday duleedka magaalada Caynaba ee Somaliland waxayna ahayd gabar yar oo ari la raaciyay taas oo loo geystay kufsi naxdin leh waxaana ka waramaya aabaheed oo ahaa qofkii ugu horeeyay ee dul tagay meedka gabadhiisa waxa uu la kulmay ayuuna ka warbixinaya haddaba aynu isla daawano muuqaalka waa la kufsaday waana sixin markii la kufsaday sixin baa loo dilay aad iyo aad gudun baana lagu dilay qoorta waa lagaga jaray meel u dad qabta looma yaqaan wax allaale wixii labada garab ka sareeyay markii sidaa loo dilay waa meel geed baa hoosti laga helay waa lagu dilay saas inta lagu jarjaray waa laga soo qaaday geed qalan lagu dhooda sidaa beerka loogu dhigo loogu riday markii loogu riday waxaan helay sidaan u raadinayay raadkeedu u waday aribaana la joogtay sidaan u raadinayay tobanka habeen qaar ka sare labada kilkilo wixii ka sareeya ayaa mariyo gudubay inta kale waa qaaway marka waxaan u yeeray dadkii gobolada magaalooyinka wixii magaalada ugu dhawaad dadkii joogay ayaan isugu yeeray wixii ciidan ahaa igu yimina waa ka joojiyay raadkeeda waa layla fuuliyay subaxii baan meeshii laga soo saaray sidii bay hadda xugmaayo nimanaan isla markaa de waxbay idin qabanayaan ugu yimaadeen aasaba la yiri waan markaan nina aasmayno xukunku aasbayaan kuwaas bayna ma kunno waan soo qaadnay shalaan soo qaadnay waa maalintii gaafareed ee jimce weey maalinta la dilay waxa weeye markaan aasmayno waxaanu soo qaadnay shalay baan soo qaadnay waxa weeye waxaanu keennay Caynaba waxaanu la yiri hawsheeda ka soconaysa markaan Caynaba keennay wax talaagad waan koow ambulance waan koow gaari yaxdeeb xugmayo waaraada oo aan anagu leenahay ayaanu kaga soo qaadnay meesha la yiraahdo gobolka magaalada Xageey markaanu kaga soo qaadnay waxaan ku keennay Caynaba markaanu ka weelay ambulance hadeeb xugmayo ka weynaa hadeeb xugmayo talaagad ka weynaa kiiban ku celinay halkan ku keen hal dhakhtarka ay taala kadib xubnaha waxaan doonay dhakhtarka burcay taala xalay baa la keenay xalay sagaalka inuu halka keen waxaanu doonaynaa haddii xubnaha sharciga islaamka inuu loo mariyo nolosha haddaba daawadayaal sidoo kale haween ku sugan magaalada Hargeysa oo gabadha meedkeeda la keenay si cadaalad u hesho ayaa waxa ay ka hadleen kufsiga ku soo batay guud ahaan geyga Soomaalida iyagoona tirinaya dhowr gabdhood oo kufsi loo geystay oo aan weli helin wax cadaalad ah haddaba waa kuwan haweenkan oo arintaasi ka hadlaya bismillaahir rahmaanir rahiim waxaanu isugu soo baxnay aanu halkan kaga hadlaynaa dilka hablaha Soomaaliyeed ee aan kala go'o lahayn ee meel walba jooga فقيد لغا ساتوريو اي هيد عائشة قالك عيا لغو عني اي هيد قباب شلما هيد الرادية هويا او شقين هيسا او جامعات كترتا او هويا لدلي او لبابيي او نفتادي لاقون سوي اي هيد او بايتا اي هذا سعيد او حولي هذه لا جاكتا او يرى فريد 15 جيرة لغو كفسبين عد لعير سلا او نفتادي وقويي او قولي وايي او jarjaray oo gaad saaray oo dafiray oo ka tagay taasaanu ka xunnahay tu kala jirta oo isla maalintaas oo la kufsaday oo laga soo gaaray
ayana dhaawaceedii noo yaallo allahu akbar waxaanu halka ka mudaaraadayna oo ka hadlaynaa inan lagu dilay gobolka Saraar magaalada Gumbure xangayaagteeda inanta waa la kufsaday godin baa lala dhacay dhowr iyo 10 godmood baa ku yaala cunaha madaxa meel kasta raggii waxay noqdeen bahalo dumarkii bay cunayaan arrintii Soomaaliland bay noo timi mudaharaad baanu ka nahay lagu dilay gobolka Saraar wardalka iyo dadka baa u tura war noo tura habliini baa nahay hooyooyinkii baanu nahay haddii aydan noo turayna waxaad ogaataan inaad idinku kuwa dhashaan ay kuwa kale dhurwaaya u soo bixi doonaan waxaan leeyahay inanta yar xaqeedii hal la keeno oo ninka hal lagu hordilo baydka yaa lanaga caasin ilaa iyo isaga lagu dul jarjaro mooyaane saasaan leeyahay waxaa kaloo jirta inan kaloo iyadana arigeedu la joogata maalintii ka horraysay la dilay oo la kufsaday oo inta midi laga taagtaagay oo lagu kala jarjaray dhiiggeedu dhilu dhammaaday oo iyadana lagu hayo degmada Caynaba maxay ahayd godinka loogu jarjaray 15 godmood laga jaray ee la yiraahdo Hodan Siciid Aadan ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo waxaanu nahay eheliyadeedii dulmarayaal baanu nahay waanu dulmanahay leeytayagi 4 cisho ayuu yaalaa oo markaa cadaalad aan nala samaynaynin magacayga Faadmo Warsame Ducaala la yiraahdo anigu 70 jir baan haddii aan xaaladda laga day oo wax laga qabanin oo aan haddii laba ku rooyo wax muuqdo aan ku qanacno aan nala tusin oo nala ka qabanin annana waxaanu samayn doonaa sanadkii tilmaamanay taariikhda dheeraayay dumartada soo helay ogow hadda yaa sanadkii tilmaamanay ee taariikhda dheeraa ee dumartada soo helay haddii kale waxaanu ku qanacno inaan ragowna tus waxaan rajeynayaa inaad daawatay muuqaalkan haddaba daawadayaal dhacdooyinkan naxdinta iyo argagaxa wato ayaa guud ahaan kusoo badanaya geyiga Soomaalida waxayna noqotay wax caadi ah in kufsiga uu dhaco arrimaha ugu badan ee loo soobeeyo gabdhaha markii la kufsado in ay raggu dilaan ayaa ah si aysan u ceeboobin oo aan hadhow loo aqoonsan waagu hore haddii ninka uu gabar kufsado kaliya waxa ogaan jiray ehelada gabadha hase yeeshee hadda arrinta soo korortay ayaa waxa ay tahay in haddii nin uu gabar kufsado sawiraantiisa lagu baahinayo baraha bulshada midaasina waxa ay naxdin ku abuurtaa dambiilayaasha waxayna iminka bilaabeen in ay tirtiraan cadaymahooda oo gabadhii ay kufsadaanba ay dilaan si aan wejigooda loo aqoonsan hase yeeshee waxaan leenahay haddii aad dhibaato geysato maalin uun maalmaha kamida waa lagu soo ogaan doonaa mana ahan in qof muslina aad gacantaada ku disho haddii aad kufsatay oo aad dhibaatadaas bugale u geysatay haddana inaad dhiiggiisa kusii darsato haddaba daawadayaal waxaan ragga ka waaninaynaa inay ka digtoonaadaan falalka noocan oo kale ah ayna ka waantoobaan gabdhuhu waa walaalahood waa hooyadood waa xaaska ay berri guursan doonaan waana gabadha ay berri ka maalin dhali doonaan haddaba gabdhaha sidaas inugu dhow oo naxariista badan ma ahan in dhib loo geystaa dumarka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay waa inaad taxadirtaan iyo waalidiintuba gabdhahana aan loo dirin shaqooyinka ay dhib kala kulmi karaan halkaad muuqaalkan kala socotid waa janalka Haldoor Media haddii ay tahay booqashadaadii ugu horreeyay ee janaalkeena fadlan ha ilaabina subscribe saarto sayna kuu dhaafin muuqaalada iyo warbixinada halkan aan soo gelino